waxay dumarku وهولها الدنيا داهل لومراي halbeega waxbarashada noocyadeeda lagu eego waxa ka dhex muuqda in midda dumarka ay kor u kacday oo ay hadda ka wanaagsan yihiin sidii ay ahaayeen sanado hore Muqdisho oo ah caasimadda dalka hooyo ee Soomaaliya waxa ku sugan gabdho badan oo aqoon-yahano ah taasi oo muujinaysa sida waalidiinta Soomaaliyeed ay u fahmeen in gabdhahooda loo diro goobaha waxbarashada dumarka waxbartay ayaa aaminsan in bulshada ay ugu fadhiyaan qiimo weyn saameyn xooggan ay ku leeyihiin bulshada oo dhan waxaa jira dumar aan fursad u helin in loo diro goobaha waxbarashada laakiin waxa badbaadiyay in qaar badan oo ka mid ah fursad u helaan in ay bartaan farsamooyinka gacanta oo baahi weyn loo qabo waalidiinta Soomaaliyeed ee gabdhahooda waxbarashada u diray ayaa kula taliyay in la dhiirigeliyo waxbarashada dumarka loona baahan yahay in qoys waliba uu fursad u abuuro gabadhiisa runtii hadii xagga waxbarashada hadii loo fiiriyo wiilasha iyo gabdhaha gabadhu waa wiilka waa ka beer jilcan tahay aad iyo aad 100% haday wax isla bartaan gabadha active gabadhaaba eebo wiilasha iyo gabdhaha aad u activesan oo waxbarashadooda yacnaha way ka wiilka way ka firfircoon tahay marka anigu waxaan dhihi lahay haddaan hooyo Soomaaliyeed ah kulay aniga horta ilmeygu waan ku dadaashay wiil iyo gabar kulay waa ii wada barteen wax alxamdulillah shukr bil caalamiin gabdhahaana si fiican gabdhahaana beer jilcan wiilasha iyo gabdhaha beer jilcan Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho